bayaanada kala duwan ee laga soo saaray kaabineyga iyo hogaaminta heer deegaan iyo golaha xildhibaanada yeesheen waxaan isla gartay annagu waxaan u baahanahay nidaamka federaaliga ee qowmiga inuu sii jiro dowlad federaal oo la wada leeyahayna uu dalkan ka hirgalo dadka Soomaalina madax banaani ismaamul inay helaan baan u baahanahay waxa aan wax ku qiimeynayna ha noqdaan taa mararka waxa la isku qasayaa mucaarad iyo muxaafid ma la isku yimaado miiska talada lagu yirmay lan talada lagu kala guuleystay mowqifkan sheegnay laakiin waa ka bayaan ka soo baxay kaabineyga ee golaha hogaaminta kale heer deegaan waa nidaamkan federaalka ee jiraan xoojin TPLF iyo maamulka waan soo arnay kii ugu dambeeyay dan uma aha ummadda kii military waddanka soo maamulna wuxuu ahaa waan ognahay dad cunbo ahaa boqortooyada lama baahnin nidaamkan federaalka ee qowmiga ah sii jira talada deegaanka Soomaaliya shacabka ku soo laabata in talada deegaanka shacabka ku soo laabata ma anaga iska saarnay misfaragrin baa jirta dad maamul Soomaaliya fadhiyo saddexda sano in joogay dhaqanka noocaas ah inta dagaal loo galay ma yaray baarlamaan xusiis waan naqaana dowladda sitaanka waa la yaqaana hebel ku xiran inta sirdoon buu yaqaana ciidan buu ku xiran yahay xildhibaan ha laga dhigo hebel ay taxaad ha laga saara hebel listiga ha lagu dara waxa soo dhamaan soo marnay waan ka baxnay qandaraasyadan la qaadanay waan ka soo gudubnay xaga dhisay ku caawinay aan galno waxa ku maqlan aan ku dhawaad 18 bilyan mashaariic ka socota deegaankan intaas oo dal waxa loo marayay waxay aan madax banaani siyaasad ahaan aan xaqiijino laakiin saddexdaas Soomaaliya ay ka nasatay baan aaminsanay dhibka waddankan ka jira haday tahay xaq siyaasadeed iyo xaq amni waan ka nasan mowqifka dowladda markay cadeysay nooca cadeysay ninka mucaaradka waxa la quman dowladda waxaan kaga duwanahay waxaan aan ku taageersanay laakiin aan soo fariisi aan talaan isweydiiyay ka ila tali ila go'aan dhiibina tawalla waa doorashan galnay taladana gacanta ku hayn waxaan niri annagu nidaamkan gurteen waa ka amniga gudaha deegaankana ciidanka ha difaacaan maleeshi liyo police iyo booliska amniga deegaanka xoog ha saaraan xuduudda ha difaacaan hal xooji miisaaniyad ha lagu kaba gaadiid ha loo gado taa sameyn guddi kala sameyn madaxweyne ku-xigeenka hogaaminaya guddiga wixii horumar ah ee socday xoog ha la saara waxa soo saarkan xoog saarna dakhliga kor ha loo qaado shaqooyinka horumarka ahna ha socdaan madaxweyne ku-xigeenka hogaamiye amniga gudaha deegaanka xuduudda ha la xoojiyo siyaasadaha socdana aan ka diyaargarino mowqifkeena ha ahaadon waxa aan haysanay wanaagsanna ha sii socdaan si aan taa ku hanleen aan sameeyno haday timaado TPLF in la sinaadana ma ogolo in nidaam loo dhanyahay la sameeyno ma ogolo 30 sano Soomaaliya waan aragnay maanta ma socdaan waa kuwa naqshada Indonesia hadda fahmila ee xisbiye aan anaga sameeyni ilaa adduunka TPLF baa halgantu aaminsan yahay kuwa anaga aan sameeysanay oo anaga noo adeegay intaan sameeyay deegaanada ku socdaan mooyane wax ka duwan oo keeneen hal waraatay ma jirto haday taa ku socdaan ay noqoto in lagu dagaalamo waddanka jijin lagu dagaalamo iyada dagaal soo gaaro oo lagu dagaalamo iman maayo Oromiya wixii soo galay oo soo gali wixii afar soo galay soo gaari marka TPLF arinta markay noqoto xoog baan ku socon karaa xoogay waxa lagu dagaalamo dhulkeeda meeyay tabarka soo gaari maayo anagu amni la xoojiye shaqooyinka horumarka xoog la saara gorgortanka siyaasadeed ee gelin uu noqdo nidaamka federaaliga qowmiga inuu sii xoogaysto